بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. sidee shakhsi faqiir ah oo ka shaqeeya maqaayad ugu suurto gashay inuu noqdo bilyaneer iyo milkiilaha mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee soo saara dharka. inta badan dadka maanta jira ma aaminaan qisooyinka noocan oo kale ah, waxayna isdhaxaan sidee shakhsi ka shaqeeya maqaayad u noqon karaa bilyaneer leh shirkado waaweyn oo caalami ah. waa arrin aan dhici karin, waa arrin aan suurtogal ahayn, waa mustaxiil. balse qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka koonfurta Kuuriyeed. shakhsiga qisadan ku dhacday waa shakhsi hadda nool oo dunida saaran, shirkadiisana shaqeeya oo la arki karo, qisadiisana laga daawan karo TV-yada, lagana akhrisan karo jaraadyada. qisada guusha dadka ka soo bilaabo meel hoose waa qisooyin dhiirigelin leh oo muujinaysa in guulaha aysan ku xirnayn halkaad ka soo bilowday, balse ay ku xiran tahay sida ay kaaga go'an tahay inaad gaarto riyooyinkaaga. dad badan oo ku noolaa nolol adag, dhaqaale xumo daran, maanta ah dad hanti leh oo nolol barwaaqo leh ku nool. waxaa jira dad badan asalkoodii hore ka shaqayn jiray shaqooyin caadi ah, balse maanta leh shirkado waaweyn iyo hanti fara badan. qisadaan maanta ka hadlayno waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad yeelato riyooyin adiga kuu qaasa oo aad rabto inaad rumayso. qaybta dambe ee muuqaalkan insha allahu tacaala waxaan kugula wadaagi doonaa casharada muhiimka ah ee aan ka baranay qisadan cajiibka ah. haddii aad nolosha hadafka leedahay oo aad rabto heer inaad ka gaarto nolosha, casharadan waxay kuu noqon karaan casharo kuu tilmaama waddadii aad si sahlan ugu gaari lahayd hadafyadaada. xaligii qisadan maanta ka hadlayno magaciisu waa Do Won Chong. Mr. Chong waa aasaasaha iyo milkiilaha shirkadda caanka ah ee soo saarta dharka Forever 21. laakiin inta uusan shirkaddan aasaasin, xaaladiisa dhaqaale siday ahayd, nolol noocee ayuu ku noolaa, si heerkan uu ku gaaro, dhibaatooyin noocee ayuu u soo maray, maxay ahayd fikradda u iftiimisay inuu heerkan maanta uu taagan yahay soo gaaro. su'aalahan iyo kuwo kaloo badan jawaabahooda waxaad ku maqli doontaa qisadeena maanta. ila socda ilaa dhammaadka muuqaalkan. intaan bilaabin qisadeena maanta, haddii aad nagu cusub tahay ha ilaabin inaad channelka subscribe garayso. haddii aad hore noola joogtay, fadlan muuqaalka like garay, lana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. inaad muuqaalka like garayso adiga waxba kuuma dhimayso, anagana faa'iido inoo tahay. mahadsanidin. Mr. Chang wuxuu ku dhashay magaalada Myeongdong ee waddanka Kuuriyada Koonfureed sanadkii 24 Maars 1954. markii uu yaraa wuxuu ka shaqayn jiray maqaayadaha si uu u taageero qoyskiisa oo ah qoys faqiir ah. Mr. Chang marka uu yaraa wuxuu lahaa riyadaasna waxay ahayd inuu yeesho hanti, laakiin arrintaasi ma ahayn mid u sahlan asaga, sababtoo ah aqoon uma lahayn qaabkii iyo waddadii uu ku gaari lahaa riyadiisa. marka uu dhammeeyey iskuulka dugsiga sare, qoyskiisa waxay u awoodi waayeen inay ka bixiyaan lacagaha jaamacadda lagu barto. sidaa darteed Mr. Chang wuxuu u go'ay dhanka iyo shaqada, wuxuuna ka shaqayn jiray maqaayadaha. lacagta uu bishii mushaaraha u qaatana wuxuu isticmaali jiray in yar, inta kalena uu kitsan jiray. muddo kadib Mr. Chang uu guursaday, wuxuuna guursaday gabar lagu magacaabi jiray Jin Song. sanadkii 1981 Mr. Chong iyo xaaskiisa ayaa u guuray waddanka Mareykanka ayagoo leh riyooyin iyo hadafyo ballaaran. marka uu tegay waddanka Mareykanka waxa uu la kulmay caqabado badan, wuxuuna ku qasbanaaday inuu ka shaqeeyo 3 shaqo si uu u daboolo baahihiisa asaasiga ah. 3dan shaqo waxay ahaayeen iibinta qaxwada, oo wuxuu gelinka shaqayn jiray maqaayad lagu iibiyo qaxwada, gelinka kalena wuxuu ka shaqayn jiray nadaafad, gelinka saddexaadna wuxuu ka shaqayn jiray meel lagu iibiyo shidaalka. halkan waxaad ka dareemi kartaa inuusan heli jirin wakhti ku filan oo uu hurdo, isagoo maalin iyo habeen shaqayn jiray ilaa 19 saacadood. dhab ahaantii dhibaatadaas oo dhan kama joojin riyadiisa, balse waxay sii adkaysay oo ay sii siyaadisay go'aankiisa ah inuu xaqiijiyo riyadiisa. Mr. Chang lacagaha uu ka helo 3dan shaqo inta badan uu keedin jiray, asagoo hadafkiisa ahaa inuu ganacsi ku sameeyo mustaqbalka. Mr. Chang hadafka uu Mareykanka ku imaaday ma ahayn keliya inuu shaqaalo sii ahaado oo uu mushaar yar oo noloshiisa ku filan u qaato, balse hadafkiisa wuxuu ahaa inuu hanti badan ka kasbado. Mr. Chang wuxuu si fiican u baaray waxa laga xiiseeyo waddanka cusub ee uu yimid, wuxuuna arkay dadka Mareykanka ku nool oo dhan inay aad u xiiseeyaan modeelada cusub ee dharka. maqaayadda uu ka shaqayn jiray markay yimaadaan ragga lacagta leh wuxuu su'aali jiray hal su'aal, su'aashaas oo ah maxaad ka shaqaysaa. inta badanna waxay ugu jawaabi jireen waxaan ka ganacsanaa dharka. 3 sano marka uu ka shaqeeyey 3dii shaqo ee aan hore u soo sheegnay, Mr. Chang asagoo la kaashanayo xaaskiisa wuxuu go'aansaday inuu galo ganacsiga dharka iyo modeelada. inta uusan dukaankiisa ugu horreeya furin, wuxuu baaray sababta ay dadka qaar ugu qasaaraan ganacsiga dharka, wuxuuna soo ogaaday dadkaas
inay qiimaha dharka qaali ay gedi jireen. Sanadkii 1984 wuxuu Mr. Chong ka furay dukaankiisa ugu horeeyay magaalada Highland Park ee gobolka California. wuxuuna ku magacaabay dukaanka Fashion 21 isagoo dukaanka isku maalgeliyay $11,000 Mareykanka ah oo ahayd lacagtii uu keedka u dhigan jiray. dukaankan waxaa lagu iibin jiray dhar casri ah, tayo sare leh, qurux badan oo qiimo jaban si ay ugu qancaan macaamiisha oo dhan, taasoo soo jiidatay macaamiil fara badan oo ka kooban da' kasta 20 jir ilaa 50 jir. arrintaasi waxay u soo hoyday guul iyo faa'iido aan marnaba uusan filayn Mr. Chang. sababtoo ah Mr. Chang iyo xaaskiisa sanadka ugu horeeyay ganacsigooda waxay filayeen inay ka heli doonaan faa'iido gaaraysa $35,000 Mareykanka kaliya, balse sanadkaas waxay faa'iido ahaan u heleen $700,000 Mareykanka ah. Mr. Chang marka uu helay lacagahaasi faraha badan wuxuu balaariyay oo uu magaca ka bedelay dukaankiisa wuxuuna u bixiyay Forever 21. guushaasi ma ahayn kaliya dukaan dhar lagu iibiyo oo dakhli badan soo xareeyay, balse waxay ahayd riyo rumowday. safarka soo bilowday shaqooyin dhib badan, dhaqaale xumo, hurdo la'aan, waddan aan la garanayn dhaqankiisa, shakhsi aan aqoon badan u lahayn waddanka uu tagayo luqadda loogu hadlo, shakhsi aan haysan shahaado jaamacadeed. ugu dambeyn shakhsigaas wuxuu dhistay boqortooyadii uu ku riyoon jiray, wuxuuna aasaasay shirkadda Forever 21 taasoo maanta laamo fara badan ku leh dunida oo dhan. shirkadda Forever 21 waxay si xawli ah ugu fiday gudaha Mareykanka iyo caalamka oo dhan, iyadoo sanadkii 2015 samaysatay in ka badan 600 oo farac oo ku yaala in ka badan 40 dal, isla markaana shaqaaleysiisay in ka badan 35,000 oo shaqaale. dakhliga sanadlaha ah ee sanadkaas soo galay waxaa lagu qiyaasay inuu gaaray $4.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. si kastaba ha ahaatee, sanadkii 2019 shirkadda Forever 21 ayaa wajahday dhibaatooyin dhaqaale, laakiin waxay dib u habeyn ballaaran ku samaysay istiraatiijiyadeeda suuqa, iyadoo diiradda saartay inay la jaanqaado isbeddelada cusub ee suuqa ka dhacay iyo inay soo jiidato jiilka cusub ee maanta jira. sidoo kale shirkadda waxay xoogga saartay horumarinta ganacsiga dhanka online-ka, iyadoo bilowday dharka ay soo saarto inay ku iibiso suuqyada online-ka si ay ula tartanto suuqyada digitalka ah ee soo koraya. talaabooyinkan ayaa u suurtageliyay shirkadda Forever 21 inay ka soo kabato hoos u dhici ku imaaday sanadkii 2019. casharada muhiimka aan ka baranay qisadan. casharka koowaad, shaqo adag iyo adkaysi. Mr. Chang wuxuu qabtay shaqooyin badan oo aad u adag markii uu yimid waddanka Mareykanka, isagoo maalintii iyo habeenkii shaqayn jiray ilaa 19 saacadood. taasi waxay muujinaysaa sida shaqada adag iyo dulqaadka loogu guulaysan karo caqabadaha adag ee nolosha, laguna gaari karo hadafyadaada. casharka labaad, dhiiranaan iyo hal abuur. markaad hadaf leedahay waxaa lama huraan ah inaad la timaado dhiiranaan iyo hal abuur, sababtoo ah waddada guusha lagu gaaro ma ahan waddo sahlan, waa waddo ku hareeraysan dhibaatooyin badan, caqabado badan, waxaana loo baahan yahay in dhibaatooyinkaas aad fursado ka dhex abuurato. si aad dhibaatooyinkaas fursado ugu dhex abuuratana waxaa daruuri ah inaad la timaado dhiiranaan iyo hal abuur. casharka saddexaad, u bareeridda khatarta iyo go'aan qaadashada. Mr. Chang iyo xaaskiisa kaydka ay haystaan oo dhan waxay ku maalgeliyeen mashruucdii koowaad, iyagoo aaminsanaa inay faa'iido ka samayn doonaan mashruucaas. middani waxay cashar muhiim ah u tahay awoodda halis qaadashada iyo rumaysanaanta aragtidaada. laakiin intaadan halistan qaadan waxaa lama huraan ah inaad soo ogaato mashruucaad rabto inaad furato waxyaabaha dhaqaajin kara, sida mashruucan ma yahay dadka waxay daneynayaan ama mashruuc ay dadka dareynayaan. casharka afraad, wax cusub oo qiimo leh ku soo kordhay bulshada. marka aad rabto inaad heer ka gaarto ganacsigaaga, ha soo guurin ganacsi hore u jiray, hana la imaan badeeco tayadeeda hoosayso, qiimaheedana sareeyo, ee waxaad isku daydaa inaad la timaado badeeco cusub, tayo saro leh, qiimaheedana macquul yahay, si aad macaamiil badan u soo jiidato. casharka shanaad, guusha waa socod dheer, waxayna qaadataa waqti badan. guusha laguma gaaro hal maalin, hal bil, hal sano. guusha waxay u baahan tahay in sannado badan loo sabro. markaan dib ugu laabano qisadeena, Mr. Chang wuxuu 3 sano xiriir ah maalin walba shaqayn jiray 19 saacadood. wuxuu qaban jiray shaqooyin adag ilaa uu markii dambe ka gaaray tayada uu lahaa, uuna dhistay shirkad caalami ah. sidaa darteed, sheekada Mr. Chang waxayna baraysaa in guusha aysan degdeg ku imaan, balse ay u baahan tahay dulqaad iyo waqti. qisadan waxay dhiirigelin u tahay qof kasta oo doonaya inuu ka gudbo caqabadaha nolosha,
gaarana riyooyinkiisa. Riyooyinka waxaa loo maraa shaqo adag, hal abuur, go'aan qaadasho iyo dhiiranaan. Talaabooyinkan haddaad qaado waxaa suurtagal ah inaad hadafkaad leedahay xaqiijin doonto insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum.